نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صدقوا الهادي. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. وكتاب يا فضل ليلة ليلة القدر إلى القدر محله بحي سيد الله كسود الدريسة إن إيتاء ليلة تقدر فيه ما يقع في السنة سنة وحي دعي إلا قدرها بيكاس قال سبحانه وتعالى وتلمام فيها يفرق كل أمر حكيم وبينك وحبذا لك لقويون سنة كعدين وحوية قال الله تجد من الله تدي عبدو إلهي تدي عمتي لمق الله تدي عفو مقصي الله تدي حمص الله حواشا يكر الدوان وهبينك الله سبحانه وتعالى سنة إلا هبينك إذا لقى قاريو وهبينك وحلك لقويوي يعني ليلة القدر وبمعنى ليلة التقدير وهبينك وحلق قدروي تقدير كنا سيد اللوكسوية هي واقعه مدوى تقدير عام والله سبحانه وتعالى كونك وحا كدعية إلى قيام الساعة سيد الضوبان يصفى فاصنب الله سبحانه وتعالى إنه الديوان قليي تقدير عام بالي هذا لوح المحفوظ كيكو قرنتها طلابك الصلاة قاضية ما أنت غفر دلنا إلا وكدمنا إياه maalin walba waxa uu sameeynaya waa qorantahay kaas waa mid caam ah marka la gaadho laylatul qadri baa habeenkaas waxa laga soo qaadaa sanadka wixii dhici ilaa ilaa habeenka kale laga gaadho waa kaynu ka hadlaynaa taqdiir sanawiya baa la yiraahdaa malaga loo dhiibaa habeenkaas sanadka wixii dhacay ka saddexaad ama kii labaad baan ka booda waa taqdiir umuriya qofku markuu uurka hooyadii ku jiro ayaa malaga loo dhiibaa بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وتقدير كصابسن قفك عمريس انت أنوليه هوله سوح كصابسن ملك قال له ديبا كصدحات وكسنوية هبين كان ليلة القدر الله سبحانه وتعالى وقدره كأفرادنا وتقدير يومي ومد ليلية ومعلوم والباء الله سبحانه وتعالى وحي دعيي سيجارة وأسي قدريه أو حوي الله مشغول سنيه سنفرغ لكم أيها الثقلان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن مال والباء الله سبحانه وتعالى هول أيها يا وعدب النولين يا عدب الدليا عدب عافمات سينيا عدب كقاضي عافماتك maalin walba hawl baa soo kordhaysa qadarku maalin walba xusub buu keenayay marka laylatul qadri waxa loogu magacaabay waa taqdiirka sanawiga ah sanadka wixii dhacay baa la qadaray waxa kale lagu macnay laylatul qadri inay tahay laylatul sharaf oo al qadr macnayaasheeda waxa kamida shay'un 'azimul qadri ay ash-sharaf inay tahay habeen sharaf badan waxayna u sharaf badan tahay fadaaisha badan الله سبحانه وتعالى وشهي وحكى له معنى القدر بمعنى إن يتاهي التضييق عريري إن يتاهي فظن أن لن نقدر عليه وحو لي يونس إنا نكو عريري حالة أما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلهي عدو دوننا أرزاق وأفدية وواسعية عدي دوننا alla ciriiri buu ka galiyaa laylatul qadr waa habeenka ciriiriga maxaa ciriiri la galinayaa waxa la yiraahdo dhulka ciriiri galaya
malaa'ig badan baa soo degaysa oo meel walba cagta dhigaysa dabeedna dhulku cidhiidhi buu noqonaya malaa'ig baa buux dhaafinaysa baraka iyo khayr la soo degay waxa kale lagu macneeyay waxa la cidhiidhiyaa habeenkaas wixii macsiyo ah ama dunuubta ama aafaadka iyo shuruurta iyo masaa'ibta cidhiidhi galaya oo waxa weeye meesha ka baxaysa waxyaabaha lagu sifeeyay habeenka waxa kamid ah inay tahay habeen badbaado laga badbaadayo waxyaabo badan laga badbaadayo dunuubtii haddii ay tahay musiibooyinka iyo aafooyinka adduunyo ayaa laga badbaadaya kuwaana cidhiidhi baa la gelinaya waa lagu macneeyey laakiin waxaa ugu caansan inay tahay laylatul qadri laylatul sharaf inay tahay baa ugu caansan habeenka noocaasa fadligiis ayuu imaamu lbukhaari baabaysanaya baabu fadli laylatil qadr wuxuu baabu yahay habeenka laylatul qadriga fadliga uu leeyahay waqaala allahu tacaala inaa anagu anzalnaahu qur'aankii waanu soo dejinnay fii laylati lqadri baanu soo dejinnay nusuulka qur'aankuna waa laba waa mid biljumla isagoo duuduuban laga soo dejiyey looxulmaxfuudka laga soo dejiyey oo loo soo dejiyey ilaa bayt alciza fi samaai dunya samadan adduunyadee dhow baytulcizaha ku yaala qur'aankoo kaamila baa la keenay oo lagu soo dhoweeyey waxaana laga soo dejiyey waxa weeye lowxulmaxfuudka ayaa laga soo dejiyey waayo isaga ayuu ku qornaa kaasi waa nuzuulu jumla qur'aankii oo kaamila min alfaatixa ila annaas ayaa baytulciza la keenay nuzuulka labaad waa degitaankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degayey muddo 23 sano ah ayuu isteeb u soo degayey waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaas cala muktin wanazalnaahu tanziila isteeb waa alla subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey yacni xilli walba munaasabo walba aayadihii khusaynayay waa alla soo dejinayay kaynu ka hadlaynaa ee alla subxaanahu wa tacaala sheegaya inuu habeenkan soo dejiyey waa soo dejin dhammaystiran wey min fowqi 7 samaawaat baa laga soo dejiyey samada adduunyada abaana loo soo dejiyey isagoo kaamila ee ka laga hadlaya waa kaas inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka waa taalla suuratu dukhaan uu ku sheegayo inaa anzalnaahu qur'aankii waanu soo dejinnay isagoo dhammaystiran fii laylati lqadri baanu soo dejinnay ee samada adduunyada abaa loo soo dejiyey kaasaa habeenkaa la soo dejiyey oo bisha ramadaan la soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan ramadaan buu ku kooban yahi walibana habeenka laylatulqadriga ayuu ku kooban yahi nusuulka noocaas amaa nusuulka kale isagu xiliyo iyo xaalado kala duwan buu soo degay bisha ramadaan iyo bilaha kaleba waa soo degay axwaal kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ayuu soo degay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa laylat lqadri habeenka laylat lqadrigu waxa uu yahay waa tafkhiim iyo tacdiim iyo tahwiil weynaysiin la weynaysiinayo habeenkaasi wuxuu yahay yacni maxaa ku ogeysiiyey habeenkaasi weyninka iyo sharafta uu leeyahay laylat lqadri habeenka laylatulqadriga loo yaqaanaa khayrun waa ka wanaagsan yahay min 1000 shahrin 1000 bilood waa ka fadli badan yahay camal ama cibaado la sameeyo 1000 bilood oo aanay ku sugnayn habeenka laylatulqadrigu aanu ka mid ahayn habeenkaasaa ka fadli badan yacni camalka la sameeyo wuxuu ka fadli badan yahay oo ka qiimo badan yahay oo ka ajar badan yahay camal la sameeyo 1000 bilood la sameeyo waa dhowr iyo 80 sano wey tanazalu lmalaa'ika malaa'igta ayaa soo degta habeenkaas iyo waruuxu jibriil waa soo degaa fiiha habeenkaas bay soo degayaan biidni rabbihim amarka rabbigood bay ku soo degayaan min kulli amrin amar kasta ama xaal kasta dartii bay u soo degayaan waa qadaagii wey ay min kulli qadaa'in waqadar dartii bay u soo degayaan salaamun habeenkaasi waa nabadgelyo hiya habeenkaasi
xata maطlaci اlfajr ilaa waagu ka baryayo. qaala bnu cuyayna, sufyaan bnu cuyayna waxa uu yidhi maa kaana wixii ahaaday fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey faqad aclamahu alla subxaanahu wa tacaala nebigiisa waa ogeysiiyey. wamaa qaala muu odhan alleh wamaa yudriika maxaa ku ogeysiinaya qaabkaa looma dhigin. wixii noocaa la yidhaahdana fainahu lam yuclim alla subxaanahu wa tacaala nebigiisa ma ogeysiin. imaam lbukhaari baabkan wuxuu u baabaysanayaa fadliga uu leeyahay leylat lqadri. wuxuuna soo qaatay suuraddii loogu magac daray habeenka noocaasa, suurat lqadri, suuradda loo yaqaano. fadiiladeeda waxaa ka mida alla subxaanahu wa tacaala suurad kaamila inuu ugu magac daray habeenka noocaasa. suurad kaamila xaalkeeda iyo shaanigeeda inuu ku soo dejiyey fadaaisheeda ayay ka mid tahay. fadaaisheeda waxaa ka mida alla subxaanahu wa tacaala inuu u xushay qur'aanka inuu soo dejiya habeenka noocaasa oo samadan adduunyada dhow waxa weeye la keeno. fadaaisheeda waxaa ka mida alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu ku cadeeyey sharafta iyo weyninka habeenkaasi uu leeyahay. wamaa adraaka ma leylat lqadr ayu shayin aclamak cadamata hadihi leyla, adiga maxaa ku ogeysiinaya habeenkani qiimaha uu leeyahay. fadaaisheeda waxaa ka mida sida aayaddu tilmaamayso, suuraddu inoo cadaynayso in waxa weeye cibaadada la sameeya waxa weeye ay ka khayr badan tahay 1,000 bilood cibaado la sameeyo. shartina maaha qofkii inuu ogaado, oo loogama jeedo qofku inuu ogaado habeenkaasi inay leylatulqadri tahay, ee cibaado haddii uu la yimaado isagoo xitaa aan ogeyn inuu habeenku habeenkii yahay oo uu waafaqo cibaadada ama camalka uu sameeyey, waxay la mid tahay ama ka fadli badan tahay 1,000 bilood camal la sameeyo oo habeenkaasi aanu ku sugnayn. fadaaisheeda waxaa ka mida malaa'igtu inay soo degayso oo jibriil calayhi salaam oo afdalu lmalaa'ika ka mida uu waxa weeye ka mid yahay. waxay la soo degayaan wanaag bay la soo degayaan, fasaxaad alle subxaanahu wa tacaala u fasaxay ayay la soo degayaan. waata aynu tilmaamayna dhulku inuu cidhiidhi noqonayo malaa'igta soo degaysa badnaanshahooda. waa fadli habeenkaas dunida malaa'igtu inay buux dhaafinayso dadka alle subxaanahu wa tacaala u abuuray cibaadadiisa, allana aan caasiye ee cibaadada badan dadka noocaasi dhulka inay nala saaxiibaan oo dhulka ay soo buux dhaafiyaan waa habeen qiimo badan bay ka dhigaysa. waxaa ka mida fadaaisheeda ka mida habeenkaasi inuu yahay habeen badbaado inuu yahay. aafaadka iyo masaa'ibta waxa weeye alla dadkiisa uu ka badbaadinayo. waxaa la mida in laga badbaadayo dunuubta iyo macaasida in waxa weeye la yaraynayo. fadaaisheeda waxaa ka mida inay tahay habeenkaasi habeen barako badan. inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka, habeen barakadiisu badan tahay. barakaduna waa inuu khayrku badan yahay. fadaaisheeda waxaa ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa ugu bushaaraynay, inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay habeenkaas qofka la seejiye wanaagga iyo cibaadada la seejiye ka seexda wanaagoo dhan in la seejiyey buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay. fadaaisheedu aad iyo aad bay u badan tahay aayaadka iyo axaadiista marka la isu geeyo. qaala waxa uri bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah almadini qaala xadaana sufyaan wa ibni cuyayna qaala waxa uri xafidnaahu, xadiidkan waanu ku xafdinay. wa ayumaa xifdin, xifdigee baanu ka xafidnay. ay wa ayumaa xifdin, xifdigee oo weynaysiin looga jeedo sidii wamaa adraaka oo kale. xifdigee baa xafidnaahu aanu ka xafidnay min azuhriyi zuhri xaggiisa. waxaa kaloo bacdu nusakh tilmaamayaan xafidnaahu waanu xafidnay.
xafidnaahu waanu xafidnay wainamaa xafidnaahu in kalaba maahe xadiidka waxaanu ka xifdinay min azuhriyi baanu ka xifdinay labada siba nusakhdu waa tilmaamayaan xafidnaahu wainamaa xafidnaahu waanu xifdinay cid kale kamaanaan xifdiyana waxaanu ka xifdinay oo keliya xadiidkan min azuhriy ibnu cuyayna odhanaya ama xafidnaahu waanu xifdinay waayumaa xifdin xifdigeeba xafidnaahu aanu ka xifdinay waayumaa ayu waa mubtada wey xifdina waa mudaafun ilayh maaduna waa ziyaado waa zaa'ida waayu xifdin waa mubtada iyo mudaafun ilayh khabarkuna waa maxduuf oo ka hore ayaa laga qaadanaya ay xafidnaahu waayu xifdin xafidnaahu macnuhu waa isu tagayaa oo waxa weeye zuhri un baanu ka xifdinay ama waa weynaysiinaya can abi salama ibn cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayra radia allahu tacaala canh can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa uri man saama kii sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan isagoo rumaysan oo ku qanacsan waxtisaaban ajar isagoo ku dalbaya ufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah waman qaama kii salaatuleyl isu taaga leylat alqadri habeenka leylatulqadriga iimaanan isagoo rumaysan waxtisaaban ajar isagoo ku dalbaya ufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama wixii tagay oo min dembihi dembigiisa ah taabacahu sufyaan bnu cuyayna xadiidka waxaa ku mutaabaceeye ku waafaqay sulaymaan bnu kaiir ninka loo yaqaano can zuhriyi isagoo ka warinaya oo sufyaan bnu cuyayna ku mutaabacaynaya shiikhiis xadiidkan isaguna wuxuu tilmaamaya oo fadaaisha leylatulqadriga ka mida qofku habeenkaa haddii uu salaatuleyl isu taago alle subxaanahu watacaala u cibaadaysto in dunuubtiisii tagtay oo dhan loo dhaafayo dunuubta loo dhaafayaana waa dunuubtii yarayd wey ama alkabaa'iru min adunuub dunuubta waaweyn iyadu waxay u baahan tahay towbad bay u baahan tahay fadaaisheeda waxaa ka mid a habeenkaas haddii aad waafaqdo oo aad la kulanto habeenkaas ay kuu timaado adoo cibaadaysanaya in dunuubtaadii tagtay lagu dhaafayo ma shardi baa qofku inuu isu taagay isagoo og habeenkaa inay tahay mise waxa ku filan habeenkaa inuu cibaadaystay yaanuu ogaanba oo uu ku beegmo habeenkaa uu ku beegmo sida loo badan yahay waa inuu waafaqo unbaa looga jeedaa laakiin inuu og yahay habeenkaasi habeenkii leylatulqadriga inay tahay sidaa awgeedna uu salaatuleyl isu taago ta noocaasa loogama jeedo waayo taas mid laynagu kalifay ma ah mid laynagu kalifay inaynu ogaano waxaa laynaga doonayaa habeenkaa inaynu waafaqno waxaana laynoo tilmaamay xilliyada loo filasho badan yahay in la waafaqo ayaa laynoo tilmaamay qofka waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo laakiin inuu ogaado habeenka noocaasa inuu isku hawlo midkuu taalla ma ah sida awgeed qowlka raajixa waa inaad waafaqda adoo cibaadaysanaya dunuubtaadii horaa lagugu dhaafaya baabu iltimaasi leylat lqadr wuxuu baab u yahay habeenka leylatulqadriga in la raadiyo oo la dalbo fi sabci lawaakhir toddobada bisha ramadaan ugu dambaysana laga baadho qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wuxuu imaamu lbukhaari inoo soo sheegay fadliga ay leedahay habeenkaasi uu leeyahay mar haddii fadligii la sheegay waa in loo baratamo waa in la doondoono waa in la baadho wey meelihii laga baadhaya axaadiisteedii buu inoogu xajiyey qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wa tinisi qaala ahbarana malik ibni anas ibni malik can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rijaala ragoo min asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam asxaabtii nabiga ka mida uruu waxaa la tusay riya lagu tusay leylat alqadri habeenka leylat lqadri fi lmanaami riya ayaa lagu tusay fi sabci lawaakhir
toddobada dambe inay tahay bisha ugu dambaysa ayaa lagu tusay. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi araa waxaan arkaya ru'yaakum riyooyinkiinu qad tawaata'at inay isku waafaqday fi sabci lawaakhir toddobada dambe ee bisha ugu dambaysa. faman kaana kii ahaaday mutaxariiha mid ku dadaalaya falyataxaraha ha ku dadaalo fi sabci lawaakhir toddobada ugu dambeeya ha ku dadaalo 23 ilaa dhammaadka bisha. xadiidkani wuxuu tilmaamayaa habeenada loo filashada badan yahay waa 10ka dambe bisha ramadaan. walibana xadiidkani si gaara wuxuu sii tilmaamayaa toddobada ugu sii dambeeya in si gaara loogu sii dadaalo. waxaa la isweydiiyey habeenka laylatul qadrigu ma yahay habeen mucayana oo la ogaanayo. waxaa kaloo la isweydiiyaa habeenkaasi ma yahay habeen baaqiya oo wali jooga mise waxa weeye tacyiinkeeda waa la rafciyey ama fadligeeda iyo habeenkaa wixii ku duugnaa waa la nasakhay. habeenkaasi ma guurguura mise habeen buu u cayiman yahay oo meel keliya ayuu baaqi ku yahay. intuba waa aqwaal wey. waxaa loo badan yahay oo jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan habeenka noocaasa inaanu habeen mucayana ahayn 27 ama 21 ama 23 ama 29 waa aqwaal la sheegay wey. habeen cayiman oo habeenkaasun laga filanayo sida waxa weeye xanaabiladu ay qabaan habeenka 27 inay tahay iyagoo daliishanaya xadiidkii muslim ubay ibn kacab inuu leeyahay inaha laylatu 27 isagoo walibana ku dhaaranaya ilaahay baan ku dhaartay buu waa habeenka 27aad yani habeen kale ma aha. xanafiyaduna dhinaca kale istaageen waxay yidhaahdeen iskaba dhaaf bisha ramadaan oo keliya ma aha sanadkoo dhan bay u intiqaashaa bay yidhaahdeen. rajab bay dhacaysa haddii ay doonto ama waxa weeye shawaal iyo dilxija iyo bilaha la midka ah yacni sanadkoo dhan bay meelun ka gelaysa. bisha ramadaan oo dhan bay u intiqaalaysa ta noocaasaa suurtagala bay yidhaahdeen. laakiin sida loo badan yahay bisha ramadaan bay ku kooban tahay waxaana loo sii filasho badan yahay 10ka dambe waxaa loo sii filasho badan yahay 7 dambe waxaa loo sii filasho badan yahay habeenada haldheeriga ah ayaa loo sii filasho badan yahay. laakiin waa filasho habeenna kuma koobna. sanadkan waxaa laga yaabaa 21 inay dhacdo sanadka xigana 23 sanadka xigana 25 sanadka xigana 27 sanadka xigana 29 inay dhacdo. waxaa suuragala sanawaadka ku xiga 22 inay dhacdo 24 26 30 inay dhacda suuragala. 10ka dambe waa loo filasho badan yahay. waxaa loo sii filasho badan yahay tirada waxa weeye haldheeriga ah. laakiin waxaa dhici karta 10ka dambe tirada dhabanka ah 22 iyo 24 iyo kuwa la midka ah kuwaana inay dhacdo waa suuragal wey. qadiyadana waxaa laga hadlayaa in loo badiyo. sidaa awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka uu ku soo gabagabaynaya imaamu albukhaari baabka nabigu 10ka dambeba wuxuu dadaalay waxa weeye si ka duwan xilliyada kale 10ka dambe si loo waafaqo habeenka noocaasa loo waafaqo. habeenka in la cayimo ama habeenka ay tahay aqwaal badan bay culimmadu ka yidhaahdeen. ibnu xajar dhowr iyo 40 qowl ayuu ku sheegayaa markuu masaladan ka hadlayo. culimmadu waxay ka yidhaahdeen dhowr iyo 40 qowl ayaa la isugu khilaafay. laakiin qowlka raajixa ah waa qowlka aynu tilmaanay inaanay cayinnayn. habeenna waa loo filasho badan yahay. laylatu 27 axaadiistu waa tilmaanta sida ubay ibnu kacab uu ku dhaaranayo oo habeenkii 27aad ayuu wuxuu ka helay calaamadihii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. dabeedna wuxuu ku dhaaranaya habeenka inay tahay.
xadiista waxaynu kala ku haynaa sida inoo iman doonta xadiiu abi saciid habeenkii 21aad isagana calaamad in laga helay oo habeenkaasi uu ahaa habeenkii laylatulqadriga uu ahaa waxaa kaloo muslim ku yimi xadiidka cabdilaahi bni unays habeenka 23aad isagana calaamad in laga helay ka dhigaysa inuu laylatulqadri yahay axaadiista markaynu eegno 21na waynu haynaa 23na waynu haynaa 27na waynu haynaa waxaynu kaloo haynaa axaadiis tilmaamaysa tobanka dambe welibana habeenka haldheeriga in loo filayo inay laylatulqadri tahay marka laysu geeyo waxaynu leenahay way guurguuraysaa laakiin waxay u badan tahay inay ku intiqaasho tobanka dambe welibana habeenada haldheeriga ah wayna dhacdaa habeenada kale laftooda tobanka dambe inay dhacdo ama laga helo aqwaasha kale waa daciif wey aqwaasha odhanaysa habeen kaliya loo goynaya ama aqwaasha odhanaysa habeenka ruficat waa la rafciyey oo wax laylatulqadri la yidhaahdaa baaqi maba ahaba waa la kor yeelay aqwaasha odhanaysa ama habeen cayiman u xadidaysa ama odhanaysa sanadkoo dhan bay gelaysa oo bisha ramadaan tobanka dambe gaar kuma ah aqwaashaasoo dhan waa daciif wey aqwaal waxa weeye adiladu ay xoojinaysa ma aha قال وحول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير اليمام الطائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال وحول سألت وان ويدي أبا سعيد سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري الأنصاري أيام ويديي وكان لي صديقا أنيقنا صاحب إلى أها أبي سلمة سيدا أورانيا مرهدو لازمي وآد وحوق قاطي سيدا سؤولي صاحب كيبوها فقال وحولي اعتكفنا وأن لا اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي معيس العشر الأوسط طبعا كيردح بشهر رمضان ومن رمضان بشهر رمضان كمية كوبية طبعا كيلا لباتنكي فخرج وابحي النبي صبيحة 20 صبحي لباتنات أي اعتكاف كي كبحي فخطبنا ونأخذ بدي وقال وحول النبي إني أنا أريد وحا تصي ليلة القدر با تصي أو لي أغيسي ثم أنسيتها كدب الليل لوسي أو أما نسيتها وان إلاوي فالتمسوها كطلبة وكرادية في العشر الأواخر طبعا كالضنب في الوتر ولبنا هبين ذا وترقاء إيها الليرقاء لقى الراديو فإني أنوه رأيت وحن أركي أني أنوه أسجدون كسجودي في ماء وطين بيئي الدوبو إن كسجودي أي الله يتصي هبين كالنوعاس فمن كان كي هذا يعتكف مد اعتكافي معي أنيق معي طبعا كي دحي الدون يهدى إنه بحسد عادد واحد فليرجعها صولابت ويانو بحين وهي بالمهاس وحوية رمضان تايتي كوري سكوي كوري نبي طبعا كدحون بو اعتكافي marka tobanka damba bilaamaana masjidka waa laga baxay oo i'tikaafka waa la joojinay farajacna wa sallaabanay wama narakum an arkayn fi samaa'i samadi qaza'atan wa darura فجاءت وحتم سحابة ضرور باتمي فمطرت ويدادي حتى سال إلا أوشمي أو دريري سقف المسجد وحوي مسجد كسقف كيس وكان واها سقف كمسجد من جريد النخل كتمرات كلامه سايوك سميسنا وأقيمت الصلاة صلاة دي بالقيمة فرأيت وحنارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يسوى كسجودي صلاة الصبح في الماء بيه وطين دوبدي والنبي قلنا الشيخي حتى رأيت إلا أن كاركي أثر الطين دوبد الرات كيدا في وجهي في جبهته النبي فوديس إلا أن دوبدي كواركي حديث نوح ينوت المامية نبي عليه الصلاة والسلام
in habeenka laylatul qadriga in loo cayimay oo loo sheegay habeenka inay tahay laakiin la ilowsiiyey alla subxaanahu wa tacaala cayimaadii loo cayimay in la ilowsiiyey waxaa inoo caddaynaya axaadiista soo socota sababta loo ilowsiiyey waa laba saxaabi baa isqabtay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy waxaan u soo baxay inaan idiin sheega habeenkaas yacni habeenka uu yahay xilliga waa cayinayd wainahu talaaxa fulaan wa fulaan waa xadiid inoo soo socda waxaa isqabtay habeenka tacyiinkiisa waa la koryeelay yacni ummaddii waxaa cilmigeeda laga koryeelay oo laga qaaday oo xitaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la ilowsiiyey oo habeenka noocaasa tacyiinkiisa la nasakhay waa habeen cayiman inay tahay marka waxa la koryeelay ama nebiga la ilowsiiyey ma aha wax la yidhaahdo laylatulqadri ma aha iyo sharafta uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay waxa la ilowsiiyey waa habeenka cayimaadiisa waa in habeen cayiman loo jaangooyo ta noocaasaa la nasakhay xilli bay cayinayd oo nabigu doonaya calayhi salaatu wasalaam dadka inuu sheego laakiin ta noocaasa waa la koryeelay waxa soo hadhay tii aynu ka hadlaynay wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad ka baadhaan tobanka dambe welibana habeenada haldheeriga ah ee witriga ah habeenada noocaas ah laga baadha buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni waa habeenada loo filashada badan yahay wuxuu nabigu u tilmaamay in habeenka noocaas uu ku sujuudayo waxa weeye dhoobo qoyan uu ku sujuudayo oo ay ku hadhayso wejigiisa ay ku hadhayso abi saciid alkhudri waxa uu yidhi anaa indhahayga ku arkay habeenkaasina wuxuu ahaa habeenkii 12aad habeenkii 12aad ayuu habeenkaasi ahaa yacni xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa sanadkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam laylatulqadrigu inuu ku beegnaa habeenkaas habeenka 12aad inuu ku beegnaa axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa habeenno kale inay waafaqday markaa isma diidayso habeenba sanadba habeen bay ku beegmaysa sanadba habeen bay ku beegmaysa wayna dhici kartaa dhowr sano isxiga hal habeen inay ku soo noqnoqoto laakiin xaalkeedu waa inay intiqaasho wey waa inay intiqaasho oo aanay habeen kaliya u jaangoonayn baabu taxari laylat alqadr wuxuu baabu yahay in lagu dadaalo habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo fi lwitri tirada haldheeriga in lagu dadaalo oo min alcashri alawaakhir tobanka dambe ka mida fiihi waxaa ku sugan baabka cubaada xadiidkii cubaadat bnu saamit ayaa ku sugan qaala waxa uhi bukhaari xadaana qutaybat bnu saciid abu raja albaqlani albaqhdadi qala xadaana ismaaciil bnu jacfar alanصari qala xadaana abu suhayl camu limaami malik abu suhayl naafic bni malik bni abi caamir alasbaxi almadani can abiih waa imaam maalik awowgii malik bnu abi caamir anas imaamka waxaa la yidhaahdaa malik ibni anas ibni malik waa awowgii can caaishaa radi allahu tacaala canha ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa uri taxaraw ku dadaala laylat alqadri habeenka laylat lqadri fi lwitri tirada haldheeriga ah oo min alcashri alawaakhir tobanka dambe ka mida oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida tobanka dambe si gaara in loogu dadaalo waxaana sidaa loogu dadaalaya oo loo kor yeelay cayimaadeeda haddii la yidhaahdo waa habeenka 25aad maalan oo habeenkaa loo jaangooyo 24kii bisha ee ka horeeya habeenkaas dadku waa isdhiganaya habeenkaa 25ka qof waliba cibaado ku saamalaylaya markaa si cibaadada loogu wada dadaalo bishoo dhan walibana tobanka dambe cibaadada loogu wada dadaalo ayaa habeenka noocaasa tacyiinkeeda iyo cayimaadeeda loo nasakhay waayo waxay noqonaysaa habeenkaasun in la sugo waxaana dhici karta habeenkaas qofkii xaalada inay ku timaado ama waxa weeye uu ka seexda ayaa laga yaabaa
oo bishoo dhan cibaadadeeda uu seego. xadaثna ibrahim bnu xamza bukhaari waxa uu xadiidka waxaa noo sheegay ibrahim bnu xamza waa ibrahim ibni xamza ibni muxamed ibni xamza aلzubayri alqurashi almadani wuxuu u nisbo sheeganaya zubayr bn اlcawaam qaala waxa uhi xadaanii ibnu abi xaazim wa cabdاlcaziiz ibni abi xaazim wاdaraawardiyu oo isaguna ah cabdاlcaziiz ibni muxamed aلdaraawardi can yaziid wa ibni cabdillaah ibni usamata bni اlhaad allaythi can muxamed ibni ibrahim التيمي القرشي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحوها يجاور مدكو اعتكافة أو مجاورة كالصمية واعتكاف كيوي في رمضان بشهر رمضان العشرة طبعا كيبو اعتكافي التي تاسو في وسط الشهر bisha bartamaheeda ah waa 11 ilaa 20 faida kaana markuu ahaado xiina yumsi xilliga uu galabaysanayo min 20 layla laga soo bilaabo 20 habeen yani 20 habeen markay dhammaadaan 20 ka habeen oo tamdi soconays yani 20 ku markuu dhammaado ee gabaldhici la gaadho maalinka 20aad wayastaqbilu soo qaabilay 21 habeenka 22aadna la soo qaabilay 20 maalmood baa dhammaaday habeenkii 22aad baa soo gelay rajaca nabigu waa u soo noqday ilaa maskanihi gurigiisa warajaca waa soo laabtay man kaana kii ahaaday yujaawiru mid la ictikaafaya macahu nabiga maciis dadkii la ictikaafaya iyaguna waa soo laabteen waanahu aqaama yani caadadu sidaasay ahayd waanahu aqaama nabigu waa nagaaday fii shahrin bil jaawara fiihi bishaasoo uu ictikaafay alcashara tobanka jaawara fiihi nabigu uu ictikaafay alleylata habeenkii ayuu nagaaday aqaama waxa weeye ayay ku tacalluqaysaa waa darfu zamaan aqaama waa nagaaday alleylata habeenkii buu nagaaday allatii taasoo kaana uu ahaa yarjicu fiiha mid laabta oo ictikaafka ka noqda waa habeenkii 22aad wey fakhaطba الnaasa nabigu dadka ayuu u khudbaday faamarahum wuxuu amray maa shaء allahu wixii alla uu doono inuu amro ayuu amray uma qaala nabigu waxaa wuri kuntu waxaan ahaa ujaawiru mid ictikaafa haadihi اlcashara tobankan dhexe uma qad badaa lii intaa dabadeed waxaa ii muuqatay an ujaawira inaan ictikaafo haadihi اlcashara alawaakhir tobankan dambe ina soo qaabilaya waa habeenkii 22aad waa habeenkii koowaad wey tobankan habeenee soo socda ee bisha ugu dambeeya inaan ictikaafa ay muuqatay faman kaana kii ahaaday ictakafa maci mid aniga ila ictikaafay falyalbath ha ku nagaado fii muctakifihi halkii uu ku ictikaafsanaa ku sii nagaado yani tobankii hadda aynu dhammaynay 10 la mida ayaynu ku daraynaa wuxuu hi nabigu waqad uriitu waxa lay tusay haadihi leylata habeenkan yada ah uma unsiituha kadib waa la ilowsiiyey fabtaguuha ka dalba fi lcashri alawaakhir tobanka dambe ka dalba wabtaguuha ka dalba oo ka raadiya fi kulli witrin habeen kastoo haldheeriya oo tobankaa ka mida waqad ra'aytunii waad ii arkaysaa asjudu anoo ku sujuudaya fii maain watiinin biyo iyo dhoobo habeenkaanoo ku sujuudaya fastahallat isamaau samadii baa curatay fii tilka alleyla habeenkaa iyada ah faamdarat way daaday fawakafa almasjidu masjidkii ayaa darooray fii musala nabiyi sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku soo darooray biyihii meeshii nabigu ku tukanaya calayhi salaau wasalaam leylata 21 habeenkii 22aad
waayo jiingadii iyo sabatoonna ma ahayn, wuxuu ahaa geetimireed caleentiibuu saqafku ka samaysnaa aan biyaha celinayn, bacna ma lahayn. fabasurat waa aragtay caynay rasuulilaahi fabasurat waa aragtay caynii indhahaygu, labadayda indhood ama ishaydu, rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam bay aragtay. wanadarat ilayh nabigii bay eegtay, insarafa isagoo ka soo gadoomay min asubxi salaadii subax. walxaal wajhuhu wejigiisuna mumtaliun uu buuxo, tiinan dhooba uu ka buuxo, iyo wamaaan biyo ayaan arkay buui. waa xadiikaynu soo marayn, wuxuu daliil u yahay sanadkaa habeenkii laylatulqadrigu inuu ku beegnaa koob iyo labaatanka inuu ku beegnaa. xaalku wuxuu ahaa bilowgii nabigu calayhi salaatu wasalaam ictikaafka wuxuu ku bilaabay 10ka bisha ramadaan ugu horeeya, sidaasay caadadiisu ahayd. ictakafa alcashra alwala min ramadaan, dabeedna markuu 10kaa dhammeeye 11kii doonaya inuu bilaabo ictikaafkana inuu joojiyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa uu doonaya inuu u noqdo, ayaa waxaa soo degay jibriil calayhi salaam baa soo degay. waa isla xadiidkan hadda aynu hayno riwaayaadkiisa qaar. nabigu la hadlo waxa ui ina aladii tatlubu amaamak, nebi maxamedow 10kii hore kii aad baadhbaadhaysa ee aad u ictikaafsanayd weli waa kaa horeeya. nabigu wuxuu ictikaafay 10kii dhexe, markii uu doonayay 10kii dhexe inuu ka baxo ayaa waxa u yimi haddana jibriil calayhi salaam, waxa ui ina aladii tatlubu amaamak, kii aad u ictikaafaysay habeenkii aad baadhbaadhaysay weli waa kaa horeeya. dabeedna nabigu wuxuu bilaabay 10kii dambena inuu ictikaafo, uuna joogteeye nabigu calayhi salaatu wasalaam. maalinkaa wixii ka dambeeyey ictikaafkiisu wuxuu ahaa 10ka dambe ayuu ahaa, si looga raadiyo habeenkaa laylatulqadriga looga dalbo oo loo waafaqo, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam 10ka dambe dhammaantii u ictikaafayey. waa baadhbaadhitaanka imaam albukhaari baabaysanayo in habeenka taxari lagu sameeyo, in lagu dadaalo, alabkiisa lagu dadaalo, waa sida imaam albukhaari baabaysanayo. qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed bnu lmuhanى abu musa الzamin qaala xadaana yaxya waqaطaan can hishaam bni curwa qaala ahbaranii abi curwaة bnu zubayr bn اlcawaam can caaishaةa radi allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaal iltamisuu raadiya buu i nabigu calayhi salaau wasalaam, waa habeenka laylat lqadriga. waxaa laga raadinayaa 10ka dambe, khaasatan witriga. xadiika waa soo gaabiye. waxadaanii muxamed bni salaam albikandi qaala ahbaranaa cabda waa ibni sulaymaan alkuufi can hishaam bni curwa can abihi can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat. waa xadiika hore u soo gaabiyey. kaana rasuul اlahi sal اllahu alayh wasalam, rasuulka alla wuxuu ahaa yujaawiru mid waxa weeye ku ictikaafa fi اlcashri اlawaakhir, 10ka ramadaanka ugu dambeeya ayuu ictikaafayey, oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida. wayaquulu wuxuu odhanaya nebigu taxaraw ku dadaala laylat اlqadri, habeenka laylat اlqadri, fi اlcashri اlawaakhir, 10ka dambe ku dadaala oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida. lafdigii horena la soo gaabiyey iltamisuu buu ahaa, raadiya. 10ka dambe waxa weeye bisha ramadaan ha laga raadiyo oo cibaadada ha lagu dadaalo. qaala waxa ui bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil alminqari atabudaki albasri abu salma qaala xadaana wuhayb wa ibni khalid albahili قال xadaثna أyوب وبن أbي تميمة السkhtiyاني عن عكرمة mولى بن عabاس عن بن عabاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa ui التمisuuha raadiya waa habeenkii في الcشhر الأwاkhir 10ka dambe ka raadiya oo min رamaضاana bisha ramadaan ka mida. laylaة الqadri baa loo jeedaa, waa bayaan caطfu bayaan ama badlu kulin min kulin,
iltamisuuha haadaasi waa habeenkii laylat lqadriga wey marka laylat alqadrina bedel bay ka tahay iltamisuuha habeenkaa raadiya laylat alqadri baa la raadinaya oo la dalbaya fii taasicatin sagaal oo tabqaa baaqi noqonaysa yacni waxaa laga baadhayaa markay sagaal habeen ay baaqi tahay sagaal habeenna waxay baaqi tahay waxa weeye 21 marka la joogo bishii waxa ka harsan sagaal baa ka harsan marka habeenka lagu daro bishana 29 lagu dhameeyo waayo 30 inay ku dhamaanayso ma hubno 30 inay ku dhamaanayso mid loo og yahay ma aha marka waxa la hubaa 29 inay tahay waa la hubaa laakiin habeen 30 inuu ka dambeeyo lama hubo intii uu baasha laga soo qaatay marka hadii la yiraahdo dadaala bisha markay ay ka harsan tahay sagaali ka harsan tahay waa 22 ilaa 29 way 22 ilaa 29 waayo 1 ilaa 9 waa 9 way soddon sano sheegnay mid la huba ma aha fi saabi'atin tadaba oo tabqa baaqi noqonays laba dib loo kacaya waa habeenka 23aad way fi khamisatin waxa dalbaysan shan oo tabqa bisha ka hadhays yaani bisha markay shani ka hadhana ku dadaala waa 25 oo marka laga bilaabo 25 iyo 26 iyo 27 iyo 8 iyo 9 waa 5 way hadii waxa weeye laga bilaabo 30 laga dhigana waxay noqonaysaa 26 kay laga bilaabo 26 in laga bilaabo markaanu leenahay taasicatin tabqa markay sagaali hadhayso hadii bisha 30 lagu dhameeyo waxa laga bilaabayaa 22 meesha waa ka baxaya marka 22 baa loo filasho badan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala halka wuxuu ka qaatay xadiidkaas waxa weeye Shafci iyo witri labadaba in lagu dadaalo Shafci iyo witri labadaba in lagu dadaalo tiradu hadii ay noqoto 29 bishu hadii ay ku dhamaato 29 waxa loo filasho badnaanaya witriga haday 30 ku dhamaatana markaynu xadiidkan eegno 30 markay ku dhamaanayso bishu waxa weeye waxa loo filasho badnaanaya habeenka dhabanka 22 24 26 8 iyo 30 ayaa loo filasho badnaanaya marka inta la isu geeyo xadiis la isu geeyana waxa ka soo baxaya si guud in loogu dadaalo waxa weeye 10 ka dambe in loogu dadaalo haba loo sii filasho bato habeenka halleeriga ah laakiin waxa dhici karta in habeenada kale ee dhabankaana in waxa weeye habeenkaasi uu ku beegmo markaas nabigu sameeyay alayhi salatu wasalaam habeenado dhan in lagu dadaalo marka xadiidkan leeyahay bisha markay sagaali ka harsan tahay dadaala waxay ku dhisan tahay ma waxa ka hadhay bishii sagaal oo 30 bay ku dhamaanaysaa oo 22 ku ka bilaabmaya sagaalku 22 ilaa 30 waa 9 30 waa loo geynaya 22 waa loo geynaya 9 bay tiradu noqonaysaa waa suuragal inay sidaa tahay waayo bishii 9 ba ka hadhay nabiguna sidaas uu leeyahay alayhi salatu wasalaam ama illa yiraahdo fi taasi'atin tabqa aynu waafajino sida ahadiistu u badan tahay oo ah bisha markay 9 ka harsan tahay inta la hubo waxaana dee la hubaa bishu inay 29 gaadhayso waa la hubaa laakiin 30 inay gaadhayso ma hubno marka waxa lagu soconayaa intii la hubay 29 hadii laga xisaabiyo waxa laga bilaabaya 22 baa laga bilaabaya in 22 ilaa 29 lagu dadaalo قال وحول البخاري حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود أو جبل نسبي وعبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود
البصري الحافظ قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد العبدي البصري قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول عن أبي مجلز وحميد بن سعيد السدوسي وعكرمة مولى ابن عباس قال waxay dhahdeen labadoodu قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهبينكii ليلة القدر iyadu في العشر الأواخر tobanka dambay ku sugan tahay في 9 sagaal bay ku sugan tahay sagaalkaasoo yamdiina soconaya tobanka dambaa la yidhi tobankii dambe welibana sagaali waa inay ka tagtaa sagaali haddii ay tagto waa habeenka 29aad aw ama fii 7 toddoba yabqiina baaqi noqonay bisha markay toddoba ka harsan tahay iyaduna waxa weeye waa habeenka 23aad habeenka 23aad bishii waxa ka dhiman haddii laga dhigo 29 inay ku dhammaanayso habeenkaana loo geeyo bishii waxa ka dhiman toddoba ayaa ka dhiman taabacahu sheekha wahayb ibn khalid la yidhaahdo xadiidka waxaa ku waafaqay cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi can ayuuba isagoo ka warinaya shiikha ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyaani la yidhaahdo oo waxa weeye wahayb ibn khalid albahili oo sanadkii hore laynoogu sheegay xadiidka wuxuu ka warinayaa ayuub waxa waafaqay cabdulwahaab oo isaguna ka warinaya ayuub وعن خالد وخالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس وحاول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوا طلبة ورادية في 24 أفر يلباط يعني ليلة القدر بالوجيدة أفر يلباط marka waxa weeye bisha ay ka tagto habeenkana waxa weeye ka raadiya ama ka dalba ahadiisa markaynu isu geyno dhamaantood waxay tilmaamaysaa tobanka dambe inay ku intiqaalayso oo u guurguurayso tobanka dambe habeen kamida laakiin tobanka dambe lafteeda waxay u sii badan tahay habeenada haleeriya habeenada kale inay dhacdana waa laga yaabaa باب رفع معرفة ليلة القدر وحو باب ياه إلا رفعي أما الله كريالي قرشد الله قرنيو أما الله عيم يابيك ليلة القدر لتلاح الناس وأمرك ضدك وأيكم مرمين أوجيد قال وحول البخاري حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى الزمين قال حدثني خالد بن الحارث الهجيمي البصري قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل قال حدثنا أنس ابن مالك عن عبادة بن الصامت ورواية صحابي عن صحابي قال وحول خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي وصبحي ليخبرنا سيونا وشاغو بليلة القدر هبينك ليلة القدر هبينك وياه فتلاحى وحمرمي رجلان لبن ومن المسلمين مسلمين تكمدا علماء قار waxay yiraahdeen waa Kacb ibn Malik iyo Abdullah ibn Abi Hadrad oo labaduba ay aslami ahaayeen oo deyn bay isku haysteen deyntii bay isku qabsadeen laakiin macada xadiidka tilmaamaya taqaada ibn Abi Hadrad wa Kacb ibn Malik dayna lahu Kacb ibn Malik ba ibn Abi Hadrad deyn u qabsaday waa Bukhari iyo Muslim qisadu waa sugan tahay laakiin muranku inuu qisada ku soo baxay macada ma xoog badna laakiin culimada qaar baa ku sheegay faqala waxa nabigu alayhi salatu wassalam kharajtu waxaan u soo baxay li ukhbirakum si aan idin ku sheego bi laylati alqadr fatalaha waxa murmay fulan wa fulan hebel ya hebel farufi'at habeenkii kor waa la kor yeelay waxa la kor yeelay ma habeenka laftiisi ma aha oo laylatul qadr wax la yiraahdo waa la baabiye looga ma jeedo waxa looga jeedaa rufi'at ta'yin laylatiha habeenkay tahay in la cayimo ayaa la nasakhay oo la kor yeelay wuxuu nabigu waa asa waxa laga yaabaa in yakuna
inuu ahaado koryeelidaasi khayran lakum mid idin wanaagsan oo dee habeenadoo dhan baad cibaadada ku dadaalaysaan faltamisuuha ka dalba fi taasica ay wal20 19 والسابعة 7 iyo wal-khaamisati 25 ha laga dalbo habeenadaas ayaa loo filasho badan yahay waa 10kii dambe walibana waa habeenadii haldheeriga ahawi 29 iyo 7 iyo 25 imaamu axmed wuxuu leeyahay walibana 27 wi baa loo sii badinaya imaamu shaaficina wuxuu u sii badiyay 21 sida xadiiثu abi saciid uu tilmaamayo culimo kalena habeeno kale ayay doorteen laakiin sida khulaasadu ay tahay wasaynu soo sheegnay baabun wuxuu baabu yahay alcamal in la cibaadaysto fi اlcashri اlawaakhir 10ka dambe oo min ramadaana ka mida yani waxaa habeenkaas fadaaisheeda ka mida in habeenkaas si gaara cibaadooyinka loogu dadaalo habeenada loo filashada badan yahay قال وحول البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وسفيان بن مصعب بن عيينة ما النسخة ما حكويا له حدثنا سفيان مس حدثنا ابن عيينة سفيان نسخه ساسي وبضنتها لكن قال وحكويمي ابن عيينة قال وحول حدثنا سفيان أي ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد العامري عن أبي الضحى ومسلم ابن الصبيح الكوفي أبي الضحى أبو عنكوية عن مسروق ابن الأجدع الهمداني الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا دخل هذا صوغشاء العشر طبنك الدنبوي شد واقيشني مئزره هسكنتيس أيو قيشني maxaa looga jeedaa laba macnaba waa lagu macnay macna waxay tahay xaasaskiisu ka fogaanay xaasaskiis ayuu ka fogaanay waana waxay luqada carbeed lagu yaqaanay fulanun shadda mizarahu qawmun idha shaddu ma'azirahu an an-nisa wa qolo hoos kuntigooda giijisanaya yaani xaasaskooda aanu tagay aanu galmoonin marka shadda mizarahu 10ka dambe hadii la gaaro habeenadooda waxa weeye nabigu galmada waa ka fogaanay طبعا sida badanna de nabigu waa shaqadii marka waxa looga jeedaa qofku markuu shaqo galayo ee u diyaar garoobayo waxa weeye waa u labistaa nabigu kaleey salaatu wasalaam waa isu diyaarinay sidana waa lagu macnay labada macnaba in lagu qaado dumarkiina waa laga fogaanay hoos guntigana waa la giijisanayo shaqa loo diyaar garoobay labadaba waa aqbalaysa waa ahya layla nabigu habeen oo dhanna waa nooleynay cibaadu ku nooleynay habeenka oo dhan waxa looga jeedaa in badan oo kamida ayaa looga jeedaa waayo sida Aisha ay leedahay ma qaama laylatan hatta sabah nabigu habeen isumu taagin cibaado illa waagu ka bariyay qayb kamida nabigu waa seexanay alayhi salatu wasalaam wa ay qada ahlihi ehelkiisana waa toosinay si ay u cibaadaystaan wallahu a'lam صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم